hooyadood inay dhimatay يعني إني دمت دكتوركم كأوعين نحسوي سوى أوعين دكتور كدكتور ويمد وفيري وحجر ويدمت ويدين السلام عليكم حالو دياري قال بقى إلا دو خبري هذا هبين كيبه ولا دو مع ماذا ما دمنيني كومي قشي قف انت عملان الله دقي ولا دو مع ماذا مركي دوغنيد مدة ساعة يسوناحي سبحان الله markay soo naxdin intay ku jirtaa qabri ayadoo qabriga jukiinaysa qaylinaysa ayaa waxaa maqlay waardiyaha qabriga joogo qabriga inta soo qaatay toosh oo fure hadduu fiiriye waa qof nool subxaan allah bal qisadan aan wada dhegeysanay insha allah balna geeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت قصة حيني وضع من الوالدين أحسانا والدك عارمة سيبه هويا ثم أمك ثم أمك ثم أمك سدح جرب ليش لومدين هويا عيار معنا قصة دان والله آدي إحنا مبادن تايم حياة لده أنا مركي قصوين كوالدك أنسو ديجيسترونتي والله ما كان قلب ديل حتى ولا وقد انت سبحان الله حنون واي وقلب توقود دوميسو قشو انا قنيسا سبحان الله إلا كو والدكو ضيع الله نقدر آمين يا الله ولادنا ضيع إن شاء الله قصة ما أنت عايدين وضوحي تهي سلام ماما دان له ويل شيء أذكي هدول انت لو ديدو ويل إلى تعاشي wiilasheedii ayay korsatay gurigan ay degan yihiin waxaa ugu tagay adoogod oo dhintay wuxuuna ku qoray maamada hooyadii ku qoray duusa dhiman waqtigiisa dhamaato waa dhintay wiilasheedii markay koreen ee midne oo noqday dadka maxaa la jiray makaanikada garaasho furtay midka kalena wuxuu noqday dadka suubiyo tuubooyinka guryaha tuubo walbo asaasamay maamadii wiilashii markay weynaadeen marka dambe waxay dhaheen anaga saa lacag ururin waa daalnay bal gurigan habaheen noogu dhinta daan gadano ee laba guri ka dhigano kabar aniga walaalkay just waa kan weysa soo fikir kan kale u tagay wuxuu sida u sheegay wuxuu waa beelo gurigii ayay bay uraadeen markay gurigii bay uraadeen ee abukaadka u tagay wuxuu gurigan ba hooyadiina ku qoran hooyada dib loogu soo noqday hooyo saxsan waxay dhaheen hooyo anaga gurkeen marabtid miya ina guursan marabtid miya awlaadeen martina aragtid miya waxay dhahday ha dabcan hooyo walbo wajacasha ilmeed inay guursadaan ee awlaad dhalaan ilme ay u tahay aragto sax sabcan way ogolaatay waxay tiri maxaartiin hadda guriga inaan gadno oo laba guri ka dhigno waxay dhaheen waxay yiri hadaa guriga gadtiina tiri ee laba guri ka dhigatiina tiri aniga inteen degaa markaas waxay dhaheen maxaa dhacay hooyo anaga intee kugu tuureena anaga la noolaanay حسيت الله ويش هذا حنانة بدنا يا كفيع هيتر وكوريجس قوري على قضي سدح قوري ونقن كراه ويرا بكاتك ما يده لبا قوري لبا بارتمنتو وين أنا كده كنا العقد نوسو هرتن أنا قابا لبا قوري وين كدكتين العقد نوسو هرتن أي قات عروس كودي دونتين نقول بعريس ديسو دونت هل أبين أهلا وعلى عروس كودي سكادين maamadii waxay istii dadkan aroos waa haad deynina walaasheed ee gurigeeda aad walaasheeda la joogto waxay la joogto muddo bil qof soo su'aalo intee ku dambaysa hooy ku aaw hada dhees ma jirto sokorteeda lacagteeda way haysataa oo doqdi waxay qabtaa sokor iyo dhikar maamadan lacagteeda waxay qaataa marka ninkeeda dhintay mushaharkiisii ayaa dawladda bil walba siisaa mushaharkaas yar ay waxay ku soo gadataa daawadeeda lacagta ka hirtan waxay la joogtaa walaasheed waxay isleedahay walaasha ku dilini dhinaceeda biilkeeda ka dhiibata laakiin bisha labaad markay dhamaaragtay ayay wacday wiilkeeda weyn maxaa dhacay tiri wiilkeeyo ma meeshaana liigu iloow ma abartiina la degana aniga maxaa dhacay balantii aan lahayn aawe mayuu yiri hooy haddan ku imaana wuu soo wadi guriga la keenay wuxuu yiri hooy aniga qolka ilmaha weli alaab ma soo dhigan laakiin fadhiga seexo hooyadiis fadhigoo seexiyo gabadha uu qabo maba arki kartaba hooyadaa ma banoo keentaba هاي هويدي waxaa lagu bilaabay cadaadis
daraajada in laga xirto raashinka in laga qarsado inaan xool cunto la siinin qof sokorta qabtana waa ii dhikar dhibaatadaas isaga sabarsana iska sabar ayaa maalinta dambe haddana waxaa la keenay biyihii tubada in laga xiro ilaa musqusha yartaa waa weyse qaadan lahayd musqushaan gelin wixii dhan male waa adkeysan weyse waxay tiri bal cidan way kaa caadiseen bal wiilkaaga kale waa wiilkeeda kale waa waxay tiri maxaa dhaca wiilkeediyo ma ii rabtid miyaa adna mayuu yiri hooyo maxaan ku ribo waa ku wadana wuu u yimid oo watay wuxuu yiri hooyaday qolka ilmaha loogu talagalay sariir aan soo dhigaa sariiro usoo gaday wuu u dhigay maamada qolkii joogtaa wuu yimid maalinta wuxuu yiri hooyo shaqadii aniga ibriga noqotay shaqadeydii shaqa ma hayo tubooyin la ka shaqeeya ogtay lacagna ma haysto hooyo haddaad nasiis ka waran kaarkaayo oo lacagta yar kugu soo dhaceyso daawada sokorta waxaagan anaa kuu soo gada haye daawadii sokorta itii dhakarka labada bil ama looma soo gada maalinta waxay tiri wiilkeyga daawadii u keen bishii xigta haddana daawada looma soo wado mandhow daawadeeda looma soo wado daawadeeda abaab lagu qulsaday maamadii waxaa isugu darsoontay cunto la-aan subxaan allah daawo la-aan suu waagu baryay waa daciiftay ma hadli karto ma qayli karto sokor dhiig kar waa qabtaa daawo ma haysto cunto ma haysto biyo ma haysto way rafaatay maamadii maantii waxay noqotay inay kooma gasho koomay guriga dhexdiisa ku gasho sariirta ma la oga marka dambe intuu yimid uu yiri hooyo maba nuuxsanaysaba arsee ku jiraan hooyo ma nuuxsanaysaba subxaan allah waa baxay dhakhtar waa dhakhtarkii markuu yimid uu fiiri maamada wuxuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hooyadiin way dhimatay walaalkiisa oo wacay waa la diyaariyey janaasadeeda waxeeda habeenkiiba waa lasoo dugay naga bobsii waayo waa laska diri duqda qabrigeeda la geliyay saacado markay ku jirta qabrigii ayay duqdii soo naaxday ilaan koomay gasho ma dhimanba markay soo naaxday qabriga iyadoo garaacaysa ka dhex qaylinaysa ayaa waxaa maqlay ninka waadiyaa qabriyada joogo ninkii albaabka ka furay wuxuu yiri saa jiraan ma nooleed maama waa noolahay oo soo baxshay qol yaroo ku qabaa qabriyada agtiisa oo dhex jiifta qolkii oo geeyey wuxuu yiri haye farxadba waaye ciwaankii gurigaaga ii sheeg ilmahaaga ii sheeg aan u geeyey maamada waa u isoo xitiri ha ii geynay tiri aniga lagu wiilaan qabay tiri man rabo inaa wiilasheedii u tagay tiri maxaa yeelay tiri anoo nool ayaa wax dhinta ka ahaa anoo dhimasho igu qeybeenni maba i arki karaanay tiri maxaa yeelay tiri taariikhdii saani ku bilaabata wayna ku dhammaataa taariikhdii ugu sheekays wiilkii islaameed ayaaba u oohebo wuxuu yiri igama badnid hooyaday oo kalaa tahay joodarigaa ii jiif waxay dhaasi kuma cusleynaay habeenkii haddaan dhinac iiganta dhigto maalintiina qabriga intaasoo laysoo xasuusto qur-aan hooyadan kusoo akrinaya inta la dhaho mid ii yimaadaay tiri qabrigaan subax fadhiisanaa waaga markuu bariya qabriga hor fadhiisataa qoraxda markay dhacdo wiilkaana qabriga raashinka ugu keeno horteeda waana qabrigeedii muddo maamadii bil ah saas markay hor fadhiisanaysa habeenkiina wiilkaan joodari meesha intuu dhiga seexanaysay ee siduu ahayd ee qof soo aadi lahayn ayuu maanta dambeetay wuxuu yiri maama waa ku baryaa kheyr allah ku siiyo sii adreeskiisiis wuu soo baxayay guri wiilka weyn u yimid markuu yimid waxaa loo sheegay wiilka weynaay sidiisaba in la xiray naagtiisa inuu gacan ka jabiyoo dilay la xiray kii yaraayo u yimid kii yaraay markuu u yimid haddana waxaa layidhi kii yaraayn kooma ku jiraa maxaa yeelay tubooyin uu sameynaya oo kasoo dhacay bir baa dhabarka ugu dhacday isbitaalka la geeyey koomoo galay muddo 2 bilood ku dhawaadba koomadaas ku jira maalintii hooyadiis waa dhimatay la duugay dhibka ku dhacay oo kan kale dhibka ku dhacay labadoodaba 2 bilood ku dhawaad ayaa midna xabsi ku jira midna kooma ku jira subxaanallah asoo yaaban ninkii qabriyada waardina dib u soo noqday maamad inuu sheego hadduu yimid maamadii waa mid runrunay markaan u dhimataba wogagidii waa mid haddana ku kaliftay inuu booliiskii u sheego inuu waco maxaa lahaa dhakhaatiirtii haddii la baarar maamada waa la sheegay saacado kahor ayay run dhimatay kahor wayba nooleedba intay nooleedtaa uu sheegay qisadeedan ninkaas waardiyaha ah ayay inta ugu sheekaysa asaga kasii sheekayay abaa la ogaalihimo subxaan allah yaa ilaahay yaqaan nimaa dhashay kuma dhalinaa maqli jiri nimaa dhashay kuma dhalin subxaan allah
يا إلهي والله عجيب العجائب يا والد ما صاص لي لا عيار ما والدك إن لا ضل يسهرن وقلق سبحان الله بل ما أنت هو اسكت إيريان بل مصيبة إلهي كوكين في ربل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله ارحمنا يا رب ارحمنا ارحم والدينا وارحمنا ارحم والدينا يا الله والله عجائب قصدان ما انت سكوكتا ان شاء الله قصدان قصة لمده حاجة كتغي عافمات بش برواقو شيرتي لايك سبسكرايب كهنا قلوبنا ان شاء الله قنبلال كان فرطة سيدي قصة والب ان شاء الله هنسوقلي ينسوقارتو حاجة كتغي عافمات بش برواقو نبضي السلام عليكم.